سعدان اسبرناها صبحي عيدي سبنا دبرواقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي كسر وذا يوتيوب channel كي كاري official maanta halkan waxaan soo fadhiistay waxa weeyaan waxaan sameeynaya maanta waxaan hore u sameynba talo maxaan noqonay waxaan maanta sameeynaya maanta halkan horta waxaan soo fadhiistay first reaction aan bixinay maanta ama youtube kii gabadheeda maan hore reaction bixin heesa ah wax kale oo bixin reaction kale laakiin mid heesa hore uma tijaabin markii koowaad aan tijaabinayo soo dhawaada leeyahay maantiba gacmo furan kafeega wixii la soo qaadan jiray oo dhan baa la soo qaato aanu in kastoo wili kafee fiyo ku daawan badadku laakiin waxay yiraahdaan kafee la soo qaatay iyo biyaha soo qaatay biyaha cad baa caafimaad waxaan ka rajaynayaa dhamaantiin subscribe ina dhac baashoo dhiirigelin waa ka yaabay hal qof haduu ku soo bira maarag waxa bad moodaa dunida ku soo raacday mas'uuliyad oo ku fuulas imka shalay daraad dhowr qof soo beereen waana isir maanta qasab ilaa loo wada video sameeyay macna waxaan ka hadlayaa muhiimadda leeyahay subscribe tina anaga noo leedahay ama qofka soo youtuber oo leedahay marka waxaan rajaynayaa subscribe taayir xun si hor loogu yaajiray indhahaas waa wada dad saac ay saacada trend dhac kasi maanta horta halkan waxaan soo fadhiistay sida xagga hoose ku saarkiisayba hees cusub hadda imkaan usoo fadhiistay waxay la soo daayay 3 saacadood ka hor aan shaxweynayna maanta hees kala soo saaray heestaas uu la tagay gobolka Agaarna mise waxa la yiraahdaa gobolka Soomaalida ugu qurux badan mid kamid ah waa gobolka Sanaag ayuu la dul tagay si uu fiidiyo ugu soo sameeyo waxaan ku leeyahay kala arag waqti la galiiday waxaan jeclaystay markii heesta loo soo daayay waxaan arkay markaan arkay maarataanay backgroundkeedii wixii soo arkaan kartay bartii ku duubayay marka horena aan commission tala socday baa waxaan sirintaa daawanba dadku kala maraqlado daawada marka waliyan horta heesta inteer hore yar eegay laakiin wali heesta ma daawan hadda raba inaan wada eegno waxa weyn garjacayl xila tahay markaan garjacayl raano waxa maleeyahay qofkii uu la gartamay dad waa garjacayl ya kaariya maanta anaga loo kala baxay aniga heesta Mustafa Salman baa horta direct ah horta inta badan anshax waxyaabo lagu yaqaan waxa kamid ah inuu heesta markii uu helo fiidiyogeeda waxa kale wadana director garin jiray anshax wuxuu caan ku yahay kow heesaa dhaqanka fiidiyoda topka ay waqtiga aadka loo geliyo hatta kuwa qurba jooga marka loo eego fiidiyo waqti uu geliyo idin gelisadee waqti koowaad director uu ka sii noqdaa ninkan intaasna waa sii dheertay imika heestiisii hore dhaqankana waa dadka aadka ugu xilleen mar walba wuxuu jecel yahay heestiisii ku yara salaysan dhaqan ku dhawaadaan imika black heestii hore uu la qaaday anigoo geeya gabadh lahayd fanis waqal inta building horta maxay waa channelka waxaan maanayaa ugu awoodda badan Soomaalida marka noqoto waqal saasa filaya hadduna hayn ka labaad ama ka koowaad ama ka labaad labada mid weeyaan abaan gaari wuxuu yiri ma taqaanaan dumarku waxay ku qurux badan yihiin marka ay xishooto iyadoo saa ku seegtay si xishooda ku seegto marka ay makiinaan tan waxay moodayeen isoo kaliya tashaakeenayeen ay ilqoorta ay hal mar la yaraacaso si aad wax weeye jawi marka loo eego qaabka u dhigayaan waaw halkan waxa weeyaan afar oday bay ku bilaabmatay inantii la doonayaa ma dhaqan baa horta laakiin waxay ku libisay dhaqankii Soomaalida ninkaas Soomaalida dhaqanka xirato kan kale kalarka cas waxa weeyaan dhaqan caan ku yihiin dadka reer Gaabo waxa weeyaan reer Gaabo ayaa badanka iyo reer Sanaag reer Gaabo ma Sanaag oo dhan baa macna xirata duubka baalka xirata agorana waxa si fadhiya afroday marka afroday inantii la doonayo bay eegtay marka horena waxa heestii oo bilaabin baa horta wax badan ay sii aragnaaba ملي قرح بدار لا إله إلا الله يا إله العالم هل كان بلي واحد كحية ضرور مسوا وحويان مسوا وحوي عركي وحاجة ضروري يبورتي واسكلاي هو استدي بيتشوي وحويان من هذا قرح بدار السنة انت geeriyoto dilooti godeer aad gelisay okay markaan waxaan u fahmay ay la tahay inay dadka break inay doonaan leeyahay macnaha hadda inta hore clip start line ka hore heesta
macnaha waxa weeyaan isagu wuxuu la hadlayaa isagu wuxuu u hadlayaa inankii jacaylka inankan meesha matalaya maaragta ayuu isagu u hadlaya horta anshaxa talo miyaa in loo diiday laga yaabaa ama wixii noqonaysa ama in ninkii loo diiday ama adigu si ulay wax u dhici waayeen boqolkeeda faras fardo dhammaan iyo qori maadhi boqol geela faras gamaan iyo faras adoo isku mid yo inaad haysataan gabadhaas waa laga bixis okay halkan waxaa kaa cad inantii oo lasoo doonay reerkiina tuxi dalbadeen may faras qori maxay ku xigi kareen haddii kalaad timi dhibaato poh hashimka lasoo doon horta inantii markii inantii lasoo dooray shardi baa meeshii hor yaalay ninkii hal shardi keliya hadduu sameeyo jacaylkiisa soo guulaysanay waa maxay waxaa laleeyahay heesta waxaa ka muuqata in lagu xiday 100 halaad qori iyo faraskiis waxa weeyaan diinati noocaad oo la iibsaday laata inantii waxa weeyaan dee waxa qof dhan magtiidan weeyaan 100 geela waa hal marka bal waxaan eeganaa inuu ninkan macna leeyahay laba mid bees marka noqoto marka imika si yar oo dhaco anu kaliya wax isku dayay heesta inaan baleen faahno macnaheeda ana music ahaan u dhageysan bal laakiin aynu isla faahno walaalahay gabadheeda nolol yaalay maxamuud horta anagu taama hayno saasan galay baaqo hadda heesta halka waa saan marka uu faahnay ninkii inay wax ku dhaceen heesta ninkii intii laga dalbaday odayaashiisii socdeen wixii waxaa ma hayno kuwii kale waxay dawladana aqoonba intaas bay wax kala nalgama bixiyo inanta haddii 100 halaad iyo faraskii iyo qori haddii saal isku saaro bala qaadan haddii kale ma jirto weligaaba soo jeclo Soomaaliyeed xakaa aqoon dhaqankooda meeshii walbu kala kacay horta inankii madaxu oqonaya jacaylkiisii wuu ku daayay yay jacaylow garma qaadataa buu jacaylow garma qaadataa anaa ma lagula garta mid kale inta lagu soo fadhiisto jacayl sal kusoo fadhiisiyo war jacayl kan hiyami sal kusoo fadhiisiyo jacaylow maxaa adeer kaa qaldan halkeen kugu soo ma loola karaa waa maya kulli dib maxay baa jacayl laadaas intii gabadh okay intii gabadh golangolaysa macnaha waxa weeyaan dadkii macnaha waxaasoo qarasha laisku xidhaya gabadhii meel cilaabiska joogtaa waxba ugama gelin ninkii meel cilaabiska joogaa macnaheed wuxuu ka hadlayaa aduu dhaqankii Soomaalida waxaan u dareensan inuu dhaqanka Soomaalida uu leeyahay meelaha qaar adag kala dabciyo meelaheed adag uu ka hadlayo saas macnaha heestu noqonaysaa horta xaqiiqatan heestu way adagto wallahi xaqiiq heestu waxa weeyaan waxaan bay isku haysteen markii saas hees midho badan markaan eego wabigu adkaaday haddana saasay tahay baa ka hor aniga lafteeda wax sameey waxay iga bahantay washirkii carabti kama ma jirto maxay tiri kulli ma takarrar tikraaran xal lahu micraabi macnaheedu noqonayso in markasta oo waxaan ku leeyahay gabayo heesa samaysaa Soomaaliga ku sii jira saas inoo soo filaya meesha waxa jira oo aan iyaduna ka marnay inantii wixii ka warsugaysaa horta meesha waxa weey aska qiso waa qiso caadi weeyaan marka la eego imika meesha waxaa ku jirto kale inantii iyo inankii la isku diiday labadoodii horta inanku uga ogaa wixii dhacay inantii guriga joogtay waxay ogeeyeen maanta la soo doonay jawaab qurux badan bay sugaysay inta loola noqon bal lagu oranay 100 geela laga bixi waan jooji waxaas rida kale iyadu ninkii rabtay bay ku waayaysaa lacagtaas kale bay may qaadaneen meeshaas lafteed waxaan ku leeyahay waa si waxay haysataa culayskii isaga fuunaya wada macnaha inantaad jeclayd horta anshax isagu waxa weeyaa heestan top dhaqanka lagu matalay meelaha la isticmaalayo kamarada la isticmaalayo droniska maxay saas ka daba baxaya waqti la geliyo xataa lacag baa la geliyay qar lacag waqti kaliya ma garsheego dibnuhu shiix galaane meel hudaysa waxba kama taro Soomaali soo oran jiray garsheego dibnuhu shiix gabaane macnaha adoo hadal rabo oo de marma ku hadal kartid dibna way la xishoonay way 100 halaad ma haysatid marka
ninkii inuu hadlana uu rabaa uu inantiidha warda inantayda halaysiinayo halka halaysoo dhigo naagta waa rabaa dee waxna islama hayo dibnihii baa shiix gabay shiix dee kelmad kolley dadka qaar baa garanaya uu shiixaya hebel intaasoo gafaad gashaay macnaa waa kow inankii ma awoodo mar kasta oo arrimo noocaas kala dhacaan soomaalida arrimaha waxaa ka daba dhasha maxaa ka dhasha kow colaad baa ka dhalatay in labadii ridad isku nacaan waa talabaad waxaa ka dhalata inantii ma awoodid iska bax madaxun baad xoqanaysaa iska tegaysaa go ahead macnaha troomi uu soo helay hadda meeshii waxaa ka muuqda ninkii oo faraskii qorigii iyo dharkiisii xidhan oo saa usoo socda markaa troomi inantii uu doonaya bixin eegana ma heestu waxa weeyaan 5 mirir 3 mirir ba waxay kusoo koobeen qisa dheer oo beriya oo ay kusoo koobeen inta wax ku leeyahay dhaba ay 5 mirir kusoo koobeen macala video ahaan clip ahaan inta horta igu raacsan inuu ashax yahay fanaaniinta kale ka caqli badan yahay xagga haddii tahay clipska fanka waxyaaba badan xagga kaga horeeyo intii ilo ashax xagga hoosaa lagu soo qoro ashax keliya soo qoray bas inta igu raacsan waxaan leeyahay video waxa kusii qurux badnaan lahaa haddii aan eego markaan fikirkayga eego maadaama meesha laga hadlayay faras gamaan iyo faras iyo maxaa boqol geele meeshii boqol geele in video lagu soo daray dee ashax boqol geele soo daba socda sawir iyo boqol geele boqolaad lagu soo daray intaas dhamaantood maasantii binti intaasoo dhan la soo socotay videoga la soo dhamaysatay intaasoo dhan maasantii reaction ka horta la yaab inay u qaato wakii koowaad markii koowaad reaction isku diyay hees waliba hees adagna waa hees fudud ma bilaaway hees dhaqana xarajeynaya horta dhamaantiinba inaad igu soo dhawaataa channelkan oo Kenya ma kay subscribe waxa la yiraahdaa waxa ku leeyahay Sausara ka soo dejinay baashir saas iska riix adoo xitaa soo jeeda eeg habtu dinigida subscribe عشان هذا نور المحب وراي نيشوف وانا وصلنا بين دمانتين با كلن كان يكون انت بوحيga ان شاء الله waxaan rajeenaa sida kala mid ah asxaabteena fiidiyada badan taqliisa ugu sii badan maayo